akhyaari sheekadan waxa waaye sheekooyinka Soomaalida ka dhaca min beled tuulo magaalo xaafad marka maybe waxa macquul gala asxaab badan oo dhageysan doonto sheekadan ama ay soo gaari doonto qaar kamid inay ku dhacday ama inay la kulmeen muhiimadda marka sheekadu waxay tahay iyo qisada ay ku saabsan tahay gabdho waxaa jira intaana la guursan ama markii la guursada kadibba suuxa oo dhaca ama ayagoo xaafada jooga ama ayagoo suuqa maraya ama ayagoo gaari saaran lala cararo xaafada la geeyo oo qof ka dhaxlo jacayl nagu abuurtay saaneen yeeshay beenoo sheegtay lacag been naga cuntay balanba waxyaabaha noocaas oo kala okay marka qofka xaaladaas oo kale markuu qofka uu ku sugan yahay cilmi baaris loo baahday laan waxa la rabaa in la ogaado moogta qofkan dhacay qofka ka dhaxalaya ee leeyahay hebel aan ahay aniga laba qaybood dadka u kala qaybsan marka mid waa mid la yaqaan oo waxa leeyahay Cismaan waay Cali waay Jaamac waay Geedi waay waa la ka saaba midna waa mid aan la aqoonin oo maybe waxa macquul gal qoftaan inay magaalooyin safar ku soo martay meelaha kale uu ka soo raacay laakiin anaga kan diirada saareen waxa waay laba ciyaalka xaafada oo iska dhaxalay macna ujeedkan u socono dhan intaas waay gabar xaafadana la deganeed baa waxa dhacday dhowr jeer oo kale dhacday waa la qabaa gabadha markaas la guursaday adigu 3 bilood amal meelahaas la qabaa gabadhan 3 bilood ka la qabo ninka waa yaabay wuxuu leeyahay inuu gabadhi waa soo xusaale ninka ka dhaxlay saan waay kan waay dadka markaan wareysta xaafadan waxay ii sheegeen ninka xaafadan la inuu la degan yahay laakiin ani maba aqaaniba yaa waay ninka maalin dam anagu guruuba soo baxnay waxaan dhaanahay markay gabadha dhacdo waxa tiraahdaa wadaadaan u yeeraa quraan igu aqriyo masaajidkaana ka soo qabana irka telefoon noo soo diray wuxuu dhahay gabadhi way dhacday okay ma dhacday ha gabadhi u nimid afarta fariiriya ka xiran waa dalmeesa yaa waa adig aniga hebel ali dhaha hebelka magaca Mustafa waraad waa ku aqaanaaniyo maal dhawatana kubadda igu jibisano ma fahamta walaalo adig waa isna qaanaay maxaa qoftaan ka soo doontay qoftaan intaan la guursanin goor aniga xiriir hoos ila lahayd waa iiga baxday ninkaan guursatay sabab adiga yaa ku diiday ma doonatay may ani ma doonan yaa iskoolaya iska aha markaan iskoolka dhameeyay amal kadib iska guursaa qorshaha iigu jirtay laakiin waaba ka baxday baad halkaan ay degantaa laakiin ana nolol ma ogolay hadda maxaa tala ma ka baxay may ma ka baxay adiga kiiskaas maalintii quraana la saaray muddo kadib uu ka baxay maalintii dambe aan fikirnay waxaan anigu saan aqal gal ma ahane ninkan waa soo laaban hadda gabadhan waa dhacaysaa maxaa sameeynaa hadii la shiri waxa la yiri horta ninkan kale gabadha markuu ka dhaxalayo xaalad nooc ku jira marka maalin dambe gabadhi dhacday dhac telefoon aan qaadan waxaan dhahnay ninkan raadinayna ma fahanteen idinka gabadha afarta fariiray ka xira juuq iyo jaaqa u dhihina isaga sheekeeyay ninkan waa baxna anagoo dhowra xaafadii aan tagnay dahay seeta fiican khayr habarta salaada la dhashay wiilka islaam fiican waay salaad wiilkaaga Mustafa ma jooga waa jooga qolku ku jira xagee u socotaan maanta badan aadayna ku badan soo dheeleyna hadeedo iska ilaaliya waxaan ku badan waa lagu jabay hay maam albaabka aan tagnay ninkan waa daldalmaya marka waa jeclahay saan waay kan waay baba bismillaahir rahmaanir sariirtu saaraya indhuhu isku haysta xarfaanka telefoon la soo baxnay waxaan dhahnay saaxiibo qoliya aan waxaan kiyaan soo waxaan warihay ma tagteen meesha waa tagnaa dhahnay ninka waa daldal mooyay qofti ka warama xaalkeeda qofti waa daldal mooyay nama qashiye maxay dhaysaa waa codka xagga ka baxay iyo kan waaba same bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan dhahnay saaxiibo waxa xagga uu ka dhahay ee tan way isleeyihiin halka artaan ku heynaa maxaa sameeyaa waxaan dhiri tartiib roos raadiyaaga soo qaado waxa soo qaadataa fiiladaada ushaada soo qaado garaac isku bilow xarfaankii ulaa lagu bilaabay qolka dhexdiisa maxaa ka bilowda had idaaya waa ka baxaa waa yeelaa baba ayran soo baxnay saantu waxay tiri maxaa dhacay ma soo kicin miyaa mayaan dhaan soo laabanayna igu soo laabto dhaa xogaa caajis ahay waa ka soo baxnay xaafadii nimid xarfaankii maalinta si xuna loo dacaariyay adiga waa baxa amala laga keenay waa tagay
adiga aan sheeko idinku daalinne talaa la raadiyay marka qaabkii ninkan gabadhan looga saari lahaa waana la yaqaanaa xaafaduu degan yahay nin sheekhaan u tagnay caalina waxaan dhahay nin sheekhow saasaa jirta sheekhu wuxuu dhahay dhib male gabadha soo lama qabo haa waad basiid waayu dhah maxaa waayu dhah dhib male uu dhahay ninkan gabadha markuu galo ay dhacdo afarta fareeray ka xir dhadhac si uusan u bixin afarta fareeray markaa ka xiratid إلا dadkan Soomaalidan waa iska buuq badan tahay moogto qolkayga soo buuqaan bas waxa tiraahdaa tartiib yaa ii baneeyaa xoogaa qofta maaragtay quraana ku akhrin rabaa kaliya si deganaana albaabkaaga soo xiro dharkaaga iska siib waxa tiraahdaa niyo adiga gabadhan ku jir ama ku jirin anu shaqo ma kugu lihi si wanaag waa kula hadlay kori hoos wax waa kugu sheegay waa is adkaysay أنا وابك دايب إسكتر لكن أنا قفتيده من لا حاجة كريو أنا حاجة عم بكليها قفتيده ما أنت ضنا بيجي سوق قبل حاجة نوعية ولا سوق بوي عرفان ما يهد اجتماع عن زمان ناكلن يا صاحبك أنتو كل بودي أول وافدية وعوفوري كومدين كركيسة وقدر تبدأ وحولا قال تعقد هذا ما حاجة لفولة ما يواك توغا صاحب فريورد يغفر waxa asameeyay qalad waay dambiya galoosa ma lugta laga soo qabta saaxiibka waa la soo jiid inta u bood laabkan gal inta ka baxka tabaanka isku tuur sariirta hoosteeda gal lugta laga soo jiido abaad marka dambe la isku rafaaday hay maxaa xala waay waa ku tuugaayo saaxiibo nin muslim ma tiido ha waa u dhaa muslim ay gabadhan ana qaba maxaa waa dhaqanka asameeyay maxaa yiri ani xaaskay unta xaaskaaga ma aniga waay mustafa waay ma fahanti gabadhaadi ma aha hata caadi ana ku dhex jiro nin maarata ina u tagtid قوم لود ما سميني آخر والو عذابا أنيجا وحواي وإفر حميني سا وهم قركان كويس تعمسوا لابناي ما يميولا ولي جاب إسقى جرادي أنا قفتي ذي موت تكري يا على أي حال سيدا هوش أسعتي وحاج وأنا لقو كاري ولقو الشيء لبدين يقو الشيء إن ما أنت أصلك قل يعرفان كان ما فهمت يا أو أنا عنون ماشي مجرى نكان ناكتي سلو رواية ونص أصلا كوسو لابن qandaraaskaas hadii la kala saxiixday fariidada laga furay saaxiibka waxa laga nastay adiga aw Mustafa Diblow 5 sano camal 5 sano kadib gabadhii maalmaha kamid dhacday gabadhii waa dhacday Allah saaxiibka shaqo ku maqan ma dhacdaa guriga ma joogtaa ii dhaafu dhaay yaa ka dhaxlooy ku cusub miyaa mise ku korkeero asagii le waay Allah waaga dawada aasiisa maxay ahayd habartu weydiis habartu wuxuu hooyo dawadi waa haya hadan suuqa ka soo maraa gowdhe ana u keenay hooyo waa ku bariya kaala dawadiisi duca qabay يا واجي واحد كو أخرس ما أقام علوم ذا وابا علوم جرت معنا يو هالشيء كوسو شيء ما هو تلافك إسكت يقول ده داود يوم سومر ما فهمت أنا إيمانه حرفان كالله إيمانه فريرة يجلس يحور الأمر أفرت فريرة يكون حلين الباب السوق جلاي صاحب كامر كو بتساق سوق جلا وأركبه وريه هي هو سوفيري وأعمسي شاتك مركو سيبو تكر سوفيري وحولها ولا محسوب بنوسها شكل واجي هو عمله وقتوه عني وصاحبه كوده مدة يقدم بيسقطان ما أنت سوق كو أركي يا dhig niyadeedii ku soo dhacday marka saasaan u soo galay waa ku bariyay ruuxa sameyn ma yiri maanta hadaan ku sii daayaba oo ay iga badbaadid niriga ma ayo qabtooy habartii hooyis banaanka laga dhigaysanay gib war hooyo maxaa dhacay ninka mi amu ka xog badiya kiya cabaada waa ku bariyaa wiilka kaale iga qabo habartii yaab dadki bismillaahir rahmaanir rahiim hooyo maxaa jira may hooyo waxa ma jira iska dhaaf adiga iga daay buuq iga dhaaf wax la murmur go'aanadan waxa lagu gaaray inuu san dib dambe u soo noqonin asna la cafiyo afarta fariireeya laga furay sharad iyo wacd waxa lagu galay haduu ninka soo laabto in shaqo laga qabto macna quraan akhris ma ah ya 10 uu san waligiis hilmaami dooni in loo dhigo calaayada xal gabadhaas maanta waa marwaxa fadagan caafimaad qabta ya nabadeedu ku jirta kii kalena على أي حال ده ما إيه كرو ساس واي كم واي نبدي سوق بقى مجالي سوق لنا كجوجا طبعا شيء كذا المركا وعلاج أما الدواء قيب كم ده قبل أن الدواء أتاي رجع قاركيس الدواء أتاي برامج كامركا أنا كشيء كين إن إذا عذرنا قصة وحنا أسوق قاعدني تقريبا قبلها سوماليات مركل الجورسدو بقول كيف تطبعات تنقيل يكون فني يا ولا قفتان ويد عاد يا كدحلو النين يا كدحلاي كان يا كدحلاي سان يا حق الهلقي دوها لو قاعد مقال هبلاي هلقي نو
afarta fariirey ka xiro wiilow haddaad barnaamijkan uu kusoo gaaraa daawatid qoftaada shaqo ka qabo haddii maalinta koowaad uu ku bariyo ku dhaho walaalow idaa maanta iyo badbaadi yah waa ku deynaa janisi hadduu fursad labaad kusoo laabto ani maba aaminsanay fursad labaad in la siiyo ninka noocaas oo kale bartiisa ha lagu qalo yah shaqo qaran ha laga qabto gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan u sheegaa ayagana ee walaalahaya in xaaladda noocan oo kale markay la kulmaan oo la guursado haddii gabadha sheekadan ay soo gaarto oo unsan ninkeeda war u haynin oo dawo lagala daalo in ay ninka qaba talada noocan oo kale siisa ee tiraahdo marka xaaladda noocan igu aragtid abuu waa ku tuuga afarta fariir iga xiga shaqo iga qaba ina naagtaada ma iyo talada noocaas inay soo jeediso waana ku mahadsantihiin barnaamijyada noocaana insha Allah way sii socon doonaan dawooyinka noocan oo kale qaab badan baa jira oo kale ayagana oo barnaamijyada dambe aan ku soo qaadan doono waana mahadsantihiin